يا والدة كان شفتي ضربوا الترس رصاص وانا في الترس واقف ضربونا رصاصتين رصاصة لي وطني ورصاصة ليك انتي والعسكري الشاب ومركله iyo Korea Media Network waa walaalkan xukun cabdi Korea oo idin soo gudbinaya afarta magaalo ee lagu cadaabo muhaajiriinta Afrikaanka ah u taariibaya wadamada Yurub magaalooyinkaasi waxay ku yaalaan wadanka Liibiya waxayna kala yihiin magaalada Misrata Tujara Sawara iyo magaalada Aynuzara waxaana siimar muhaajiriinta Afrikaanka ah ee u taariibaya una socda wadamada Yurub waana meel ay ku hakadaan kadibna foolxumo loogu geysto dadka musaafiriinta ee raadinaya nolol nabad dhaqaale ee ka soo hayaamaya wadamada Afrika ee colaaduhu daalsadeen kama fakan kartid cadaadkan ilaa uu alla ka badbaadiyo ma ogiye waa hal ku dhiga clipkan aan ugu magac daray waxaan baaritaan dheer ku sameeyay muddo 2 bilood ah muhaajiriinta Afrika ka socdaalaya u socda Yurub marka ay marahayaan wadanka Liibiya dhibaatooyinka fara badan ee ay halkaas kala kulmaan haddii aan hal u sharaxo magaalooyinkaasi background-kooda aan ku bilaabay magaalada Masrata magaalada Masrata waa magaalo ku taala wadanka Liibiya gaar ahaan waqooyi galbeed Liibiya waxay bari ka jirtaa magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya waxayna caasimadda u jirtaa 187 kilomitir oo u dhiganta 116 mayl caasimadda labaad ee Liibiyana waxay u jirtaa 825 kilomitir oo u dhiganta 513 mayl dhanka galbeed waana magaalo saaran badda Mediterranean-ka waxayna leedahay xeebo caan ah dalxiisayaashuna imaan jireen qarnigii 19aad dhamaadkiisii dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 281,000 oo qof waana caasimadda saddexaad ee wadanka Liibiya marka laga reebo magaalada Tripoli iyo Benghazi waxaana lagu yeeri jiray muddooyinkii hore magaaladii ganacsiga sababtoo ah Yurub waxaa ka xiga badda Mediterranean-ka bas ah waana magaalo ganacsigeeda ku tiirsanaan jireen wadamada Yurub qarniyo badan Masrata waa magaalo taariikh dheer leh xilliyadii Cusmaaniyiinta iyo xilliyadii muslimiinta ay ka talin jireen sida xukuumadii Andalus magaca Masrata wuxuu ka soo jeedaa qabaa'ilka Masrata qaybtiisa ballaaran ee ay ku minaysan yihiin qabaa'ilada Barbara Hawara kuwaas oo asalkooda la sheegay in ay ka soo kala jeedaan Roomaankii hore iyo Carbihii degi jiray xeebahaas magaalada Masrata waxaa la aasaasay qarnigii 7aad xilligii ilbaxnimadii khilaafooyinkii Islaamka waxaana lagu xukumi jiray shariicada Islaamka waxaana soo martay xukumo kala duwan sida Roomaankii gumeystihii Yurub khilaafooyinkii Islaamka xukuumadii Andalus Qadaafi maleeshiyad beeleedyo Islaamiyiin dhacdooyinkii xukuumaha ay soo martay magaalada Masrata waxaa ka mid ah markii ciidamada Qadaafi laga qabsaday magaaladaasi in ay si arxan darro ah weerar hoobiyaal iyo madaafiic ay ku qaadeen tikada Masrata halkaas oo ay ku burburiyeen hanti aad u far badan ee leeyihiin dadka reer Liibiya midkani waa marka ka fakan haya rasaasta kulul ee ka imaanaysa arxan laawayaasha Qadaafi wariyo ku sugan halkaas xilligaas ayaa wuxuu soo sheegayaa magaalada in ay tahay mid ayadoo dhan baqiiqa kacaysa ayna u sii daran tahay aaga uu joogo ee tikada magaalada Masrata halkaas oo ay madaafiic aad u culus ka dhacayso halkaas oo ay ku soo hoobanaysa madaafiic aad u fara badan asagana uu qatar ku jiro
but one vessel at least which has broken Colonel Gaddafi's stranglehold on this port. Alex Thompson, Channel 4 News, Misrata. magaalada Masaraad maanta waa magaaladii cadaabta laguna cadaabayo kumaan kun oo muhaajiriin u socdaalay dhankaas ee Yurub oo ay ka mid yihiin walaalahan Soomaaliya dhibaatooyinka ka dhacaya ma aha mid aan daawan karno waxaan oga digayaa dhalinyarteena Soomaaliyeed ay alla talada saartaan oo ay joojiyaan tahriibka maantana aysan jirin meel loo tahriiba caalamka fadlan walaalkayga iyo walaashayda qaaliga oo jooji tahriibka maxaa ka dhacaya magaalooyinkaas daawo muuqaalka koobaad ee naxdin يا والدة كان شفتي ضربوا الترس رصاص وانا في الترس واقف ليبي إلا شو حنسوي إلا ضربونا رصاصين رصاص عليه وطني ورصاص عليك يا وحن عبي جربيرو بسيطة شوفن كاجرة بالحساسية ضد والعسكري الشافع الدوسكة بيدو زي لعبة الليدو waxaan ugu dhacday nasiib xumo weyn waan guul dareysanay aadan u guul dareysanay kan wuxuu kuugu simay tarxiil kaliya oo uu ku soo qabto dalkiisuna ka soo saartay waan is sharfay والدوسكة ما بتقتل سكات نسينا الدوسكة ما بتقتل حول يا والدة كان شفتي ضربوا الترس رصاص وانا في الترس واقف افتح يا ضربونا رصاصتين رصاص ولا صبر يا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله ولا صبر يا تعال يونس تعال يونس ولا لي ولا ولا لو يجي سونا الدنيا ولا ما تريد تجري ولا كسر ولا نقص سونا ولا هو يجي ولا منو ولا كم سنة كذي ولا سنة
تجارة ومقالة كتالا وقوي قلبيد ودن كالليبيا وحينا سارنتا حيبتا بدا ميديترينيانكا وحينا عاصمة ترابل كجرتا دان كبري وحينا أجرتا أفر إيا 10 كيلومتر أو لغنتا سيدين دبيع تضبا مايل وحانا لو يقانا الدقمدي معارض كو أهد قذافي ومقالة قذافي كل نقطي لفظون قشي دانكا كالا قروح ذا إيا قناعسيقا سوچي دين جرتي مع القبيلنا ذا إيا دالحيسيونين كان إيمان جرين ومقالة قروح بدن أمد سو جرتي ومقالة داد كذا انت بدن الحقيري جري قبود فليا بدن اللوغي تحلية كلا الدوان لأنك سياسة لقالها لكن مقالة ذا لقف ليي مشاريع بدن أو حلقل حلقي قذافي وانا ميشا قصارها أو بدن كردع حلقي لوكع سنة حكومة قذافي تجارة ومقالة استراتيجية وحانا لو حسوستا دقالة بدن أو كردعي حلقي خلافة عثمانيين أي كتلين جرتي هالكاس أو أي اسكو فرصارين إذا مدي تليانية أي مكسو الدولي هالكاس عثمانيين أو كل واحد مقالة تجارة سلقيد أقوى وين ayaa halkaas waxa ilaa hadda raadkeedii ka muuqda dagaaladii Talyaaniga ay kula galmeen iyo dhismihii iyo burburkii markastoo ay rabaan in ay soo gudbaan gumeystaha reer Yurub waa magaalada ay ka soo degaan oo laga qorsheyn jiray sidii loo qabsan lahaa magaalooyinka wadanka Liibiya ama Afrika meelo kamid ah Tujara waxa ku yaala xarumaha cilmi baarista oo gacan ka geystay midowga Soviet 1981 halkaas oo reer galbeedka ay ku tumi jireen in lagu sameeyo hubka nuclearka laguna kobciyo macdanta uraniumka magaca Tujara macnaheedu waa taaj ama calaamada boqorka loo saaro waxayna sheegaan dadka taariikhaha wax ka qora in halkaasi uu boqor ku waayay calaamasaarkiisii xilligii magaalada ay dhismaysay khilaaf ba'ana dadkii halka joogay oo ka dhacay sidaasna loogu bixiyay magaalada Tujara ama magaaladii taajka magaaladaas waxay caan ku ahayd imaanshaha dadka cadaanka ah dalxiisayaasha shirkadaha kalluumaysiga suuqaqa waaweyn oo ay badeecooyinka lagu kala bedesho iyo waliba Muammar al-Qaddafi oo ku dhigan jiray xalfadaha khaaska ah waxaana ku yaala suuqa ugu weyn ee kalluunka oo caalamka loo iibgeeyo laakiin maanta waxa ku yaala xabsiga ugu weyn ee fadeexada iyo qalbi jabka ku caan baxay ee muhaajiriinta lagu jirdilo laguna adoonsado laguna laayo halkaas oo caalamka indhihiisa soo jiidatay bal arag waxa halkaas ka dhaca mushkilada weyn waxa weeyaan rafaadka aan soo marnay wadankan u soconay waa Yurub ay ahayd haddana Liibiya joognaa sheelka hadda maadaama joognaa horta wax caawimaad ah يا والدة كان شفتي ضربوا الترس ضربوا سعيد عطار الحوثي مو يماني ولا يعرف يمني لا بزعل بسم انا بقدر اقول بسم بقتل سكات نسينا الدوش كما بتقتل ضربوا الترس رصاص وانا في الترس واقف ضربونا رصاصتين رصاصة ليه وطني ورصاصة ليك انتي
magaalada Sawara waxay ku taalaa wadanka Liibiya gaar ahaan waqooyi galbeed dhanka xuduudda wadanka Tunisia waana magaalo leh takad waxayna caan ku tahay xeebaha dalxiiska cuntada badda laga keeno waxayna magaalada Trabzon u jirtaa 105 kilomitir oo u dhigantay 63 mayl waxayna u jirtaa wadanka Tunisia 60 kilomitir dadkeeduna inta badan waxay ku hadlaan luqadda Zanita Berber language dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 32893 qof waxaa la sheegaa magaaladaas in ay degeen sanadkii 1360 ilaa 1309 dad safar ah oo reer Tanjini Sawara ahaa magaaladaasna sidaas loogu bixiyay Sawaradii yareyd kadibna waxaa soo degay dad Afrikaan iyo Tunisian ah waana meelaha laga soo agaasimi jiray kacdoonka Muammar al-Gaddafi looga tuuray xukunka. But where Gaddafi loyalists are still fighting, the confrontations are fierce. In the town of Zawara, rebels remain defiant despite being surrounded. But the shelling of rebel positions has already left 6 people dead and many more injured. The locals have called for help. Kani waa magaalada Sawara waa magaaladii laga soo abaabulay kacdoonkii lagaga tuuray xukunka Gaddafi waxa ka dhacay dagaal aad u kharaar oo la isku tagay gacanta waxa ku naf waayay kumaan reer Liibiyaan ah magaaladani waxay mar gacanta u gashay islaamiyiinta kacdoonka ka wada caalamka oo mar ay xukumi jireen ka bacdi israaxiix fara badan ay soo marteen ayagana ilaa hadda ay saameyn ku leeyihiin magaaladani waa magaalo aad istiraatiiji u ah magaalada Sawara waa magaaladii kacdoomada ugu waaweyn ay ka dhaceen oo lagaga soo horjeedo Gaddafi magaalada Sawara maanta waxaa ku yaala xabsiga ugu xun caalamka oo lagu tacbiidiyo dadka muhaajiriinta ee Yurub u socda hay'adaha digniinta bixiya waxay ka digeen magaaladaas in loo socdaalo ama loo shaqo tago khatarta ka jirta awgeed magaalada Aynuzaarat iyadana waxay ku taalaa wadanka Liibiya galbeedkiisa waxayna ka mid tahay gobolka Tripoli waxaana dhahaa mararka qaarkood waxayba ka mid tahay magaalada Tripoli waxayna ku dhex taalaa meel kayn ah oo biyo iyo dhir badan waxayna caan ku tahay beeraha la tabcado waxaana u badan dad beeraley ah magaaladan yarta ah waxay jirtaa ilaa qarnigii 4 dadka qaarna waxay sheegaan in magaalada Tripoli asalkeedu iyada ka soo bilaamatay waxayna ku jirtaa xuduudka Tripoli waa magaalo soo martay dagaalo ba'an ee u dhaxeeyay Cusmaaniyiintii iyo Talyaanigii soo duulay December 1911 halkaas oo Talyaaniga xoog ku qabsaday kadibna ka dhisay jid tareen oo isku xira Tripoli iyo Aynuzar magaaladaasi waxaa dagaalo aad u kharaar oo ka dhacay xilligii Gaddafi in la afgambinayay halkani waa magaalada Aynuzar oo dagaal aad u kharaar ku dhaxmarahayo ciidamada Gaddafi iyo ciidamada kale ee ka soo horjeeday ee mucaaradka ee ka tuuray xukunka halkan ayaa la isku farasaaray 2011 oo khasaarihii ugu lixaadka badnaa ka dhacay ma doonahay inaan sawirada qaarkood idin tuso laakiinse halkani waa meesha loo tahriibo lagana raadiyo in la sii maro meeshana waa meesha ay tahriibiyaasha sida xun loogu galo lagu jirdilo lagu kufsado kabacdina waxa ku soo noqday dagaal aad u kharaar oo islaamiyiin ku dhaxmaray halkaas iyo Khaliif Xafdarba waxaana lagu xasuustaa dhawaanahan in ay ka fakadeen maxaabiis gaaraya 400 oo maxbuus September 2018 halkaas oo ay weerareen qabaa'ilka ku kacsan dawladda ay taageertay UN-ka kana sii daayeen maxaabiistaas faraha badan halkani waa magaalada Tripoli
meel u jirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Tripoli 7 kiiloomitir waxaa ku yaala kaam aad u weyn oo ay ku jiraan muhaajiriin lagu qiyaasay 800 oo muhaajir oo meesha ugu jira magafayaasha halkaas ku xareystay telefishinka Channel 4 oo halkaas tagay ayaa wuxuu ka soo duubay kaamirooyin mid u hadlay dadka muhaajiriinta ee kaamkaas ku jira ee ka badbaaday ayaa wuxuu yiri waxaan noo soo galay baabuur Land Cruiser oo 4 nin oo hubeysan ay saaran tahay isla markiina waxay bilaabeen inay noo toogtaan si toos ah halkaas waxaa ka dhacay dhibaato aad u weyn laba qof ayaa ku dhimatay 30 qof oo kalena way ku dhaawacmeen magafayaasha waxay nagu amreen inaan joojino baryada annagana waxaan niri sababteen ku joojinaa baryada waxayna bilaabeen in ay si toos ah noo toogtaan meeshan waxaa ka dhacday dhibaato aad u weyn Nobody to help for my leg is my problem. My leg, I can't. Kaan maqashid magafe waxaa kugu soo dhacaya dad Liibiyaan ah oo si naxariis darro u garaacaya ama u dilaya dad Afrikada kala ah laakiin ku darso xisaabta in meesha loo dhan yahay waliba ay ku jiraan Soomaali manaxyaal oo dadka garaacaya kana mid ah shabakada adduunka falaagada ka ah ee dadka garaacaysa ee ku dhaqan wadankaasi Liibiya waxaa jira shabakad ballaaran oo isku xirta Yurub ilaa Liibiya ilaa Afrika inteeda kale taas oo ay ku xiriiraan hab farsamaysan nambaro iyo koodhad aan la garanaynin ayagoo ka dhaxbaxaya booliska adduunka ee Interpol shabakada magafayaasha waxaa ka mid ah dad u dhashay wadamada reer Yurub Liibiyaan Ghanes Moroccan Masaari Suudaan Soomaali Ethiopian iyo waliba wadanka Nigeria dadka cadaanka ah waxay ka caawiyaan in ay soo dhiibaan doomaha plastikada ah ama buufinka ka samaysan ama farsamooyinka doomaha lagu tahriibiyo muhaajiriinta Yurub u socota kuwaas oo si qarsoodi ah ku soo geliya wadanka Liibiya waxayna ka caawiyaan dhanka talada iqaabaha la marsiinayo muhaajiriinta iyo in aan la ogaan jidadka lacagta loo soo marinayo magafayaasha iyadoo lagu shubo lacagahaasi akoontiyo kala duwan loona mariyo si xirfadaysan qof walbana meeshuu joogo saamigiisa ku helo si uusan fashil u dhicin lisuna aamino waxaan la kulmay qof walaalkiis magafe qabsaday oo si toos ah loola soo xiriiray waxa ay soo wacday qof dumar ah oo Soomaaliyeed ah waxayna i weydiisay in aan aqaano wiilka magaciisa haday ii sheegtay waana u sheegay waxaan iri wiilkaasi waa walaalkay waxay ii sheegtay wiilkaasi inay gacanta magafaha uu ku jiro ayagana ay gacanta ku hayaan lacag aad u fara badan ay ku soo bixiyeen hadeerna uu ku sugan yahay magaalada Tujara waxay siisay muddo 15 cisho gudahood in aan ku soo bixiyo lacag $7,000 haddii kale oo waqtigaas ku soo bixin waayeen inuu arki doono walaalkiis oo wajiye kala leh waxa sidaas u hanjabahaya waa gabar Soomaaliyeed oo magafayaasha ka tirsan wuxuu yiri walaalay lacagta waa diyaar fadlan walaalkayaan la garaacin wax jiddilanayaan loo geysan lacagtaasi waan soo shubahayaa sida ugu dhaqsaha badan xilliga ay qabatay laakiin waxaan codsanayaa inaan walaalkay aanan far la saarin si toos ayay ila soo hadalsiisay walaalkay waxayna iga codsatay in lacagtaasi si degdeg ah loo soo bixiyo si aan u raaciyo doomaha baxaya bishan waxay siisay naag wakiil uga ah magafayaasha Soomaaliya nambarkeeda gabadhaas oo joogta magaalada Hargeysa oo la yiraahdo Siraad Cumar telefoonkeedana uu yahay 63 31 94 86 nambarkaas wacay tiri waxa wadata gabar la Siraad Cumar halkaas lacagta ku shubay tiri gabadhii waan la xiriiray Siraad Cumar ahayd waxayna i tiri ma qof baa ka xiran ha ayaan iri waxay i tiri magaciisa oo saddexna ii sheeg iyo magaalada uu ku xiran yahay waxaan u gudbiyay magaciisa oo saddexan iyo magaalada Tujara oo uu ku xiran yahay caawa ugu soo celi ayay tiri habeenkii ayaan ku soo celiyay waxay tiri wiilka magaciisa lacagta ku soo qor magacaaga ku soo qorin lacagta waxaad ii soo dhigtaa lacagtana shirkadda Amal sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan lacagta laga rabana waa $7,000 isla subaxii ayaan u dhigay shirkadda Amal lacagta $7,000 ahayd waxay ii soo dirtay code number waxay tiri u gudbi gabadhii ku soo wacday
koodhkaasi oo 9 jiifar ka kooban oo joogta magaalada Tujara. isla galabkiiba waxaan wacay Liibiya iyo gabadhii magafaha la shaqaynaysay waxaan u gudbiyay code numberkii magaco ma gudbin laakiin code number bis ayaan u gudbiyay ayuu yiri qofkaas walaalkiis ka xirnaa 5 maalmood kadib waxay ila soo hadalsiisay walaalkay oo doontii fuuli raba sidii ayuuna ku galay Yurub halkaas waxa kaaga cad qaabka loo xiriirayo iyo sida la isku aaminsan yahay dhaqaalaha fara badan ee laga helo afduubka iyo dilka jirdilka laga sameeyo dhaqaalaha faraha badan ee ka soo xarooda hawshan mooryaannimada ah dhalinyarada waxaa lagu tashkiiliyaa oo lagu dhiirigeliyaa in Yurub si fudud loo geynayo waxaana loogu sheekeeyaa Liibiya si lacag la'aan in lagu geyn doono laakiin marka ay tagaan Liibiya in la gadi doono doon markii dadkan oo dhan lacagta doonta loo gadahay ay kala qaybsadaan ay waxyaar kaga soo aadayso sidaasna ay Yurub ku tagayaan laakiin taas waa shirqool iyo dimandaabyo loo dhigayo dhalinyarada kuwana waxa laga urursadaa wadanka Liibiya gudaheeda waxaana loo dhaadhiciyaa jeelasha dadka lagu cadaabo ninkani waxa la dhahay Ibrahim sida lagu xusay arjiifyada adduunka waxa lagu wareejiyay koox la soo amarin habaabiye oo muhaajiriin Afrikaan ah wuxuu ugu qodbadeynayaa hadalkan si fiican ii dhageysta halkani waa Liibiya waa meel uusan nidaam dawladeed ka jirin waxa idinku soo baxday qof kastaba lacag gaaraysa $7,500 waxa idin furan 2 arrimood bas ah jaaniskuna waa 20 cisho wixii telefoon diris ah aniga ayaa idinka caawinaya mid saddexaad oo jaanis kale ah ma jiro 20 maalin kadib inaad dhamisaan cadaabaha adduunka kuwooda ugu xunxun una dhowdahay in naftiina inaad ku weydaan iyo inaad si sharaf leh kaga gudubtaan badda Mediterranean-ka taas ehelkiina ayay ku xiran tahay mid ay idin doorahayaan midda koobaad waa in uu qof kastaba iska bixiyaa lacagta $7,500 ah taasi waxa ku jirta sharafteena midda labaad waa in aad dhamisaan cadaabka adduunka kuwa ugu xun baabuurka imaan doonana wad raacisaan warkana waa xiran yahay waxaana la idin geenayaa guri 20 cisho la idinku hayn doono wadankii barwaaqada ahaa ee dadkoodu gaajaysnaayeen waa Soomaaliya dhalinyarada tahriibaya waxay arkayaan wadankoodii oo lagala dagaalamaya dhaqaalaha nabadda dagaal oogayaal ku sii badanaya wadankooda jilaafayn maamul kasta oo la soo aduudo road mapkii nabadda oo na tubteedii lahayn iyadoo la isku mashquulinayo dib u heshiisiin dhalanteed ah iyadoo laga raadinayo odayaal si khaas ah loo wato maamul goboleedyo dawlado kale korka xukumaan dawladii dhaxana kula gorgortamaya si aan shuruucda u taala waafaqsaneyn ayagoo isku haleynhayo awoodo kale oo shisheeye waxay dhalinyarta Soomaaliyeed arkayaan siyaasiyiinta Soomaaliya oo ayagu aanan ahayn kuwa la isku haleyn karin ayagoo ay fahmi waayeen jihada ay u socdaan afarta jiho ay u socdaan garan waayay kuna wareeray qaabka ay u shaqeynayaan ayagoo mararka qaar kood ay dhalinyartu
aaminsan yihiin inay yihiin calooshada shaqaystayaal ilaahay lagu ku sallida iyaga. Dhalinyarta Soomaaliyeedna ay qaarkood aaminsan yihiin calooshada shaqaystayaal ilaahay ku salliday siyaasiyiinta Soomaaliya. Dhalinyaradu waxay wajahayaan shaqo la'aan, busaarad, xasilooni darro, nabad la'aan, geeri joogta oo ehladooda ku dhacaysa. Waxay arkayaan ulweynihii Soomaaliya oo la kala jarjarayo iyo wadamo horle oo carbeed oo ku soo biiray ragaadinta Soomaaliya. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay arkayaan dagaalka bahalnimada ah ee ka socda Soomaaliya kii lagu qabtana dagaalka in aan shuruuc islaam iyo mid kaleba loo fiirinaynin. Dawladda nabad iyo nolol waxaan kula talin lahaa dhaqaalahan badan ee garoomada kubadda cagta, dib u heshiisiinta aan cilmiga ku dhisnayn, xafladaha micno darrada iyo faakahaysiga aad ku baabi'inaysaan in aad u weecisaan tubta saxda ee nabadda, adinkoo geed gaaban iyo geed dheer u fuulahaya in aad la heshiisaan xarakada Al-Shabaab, taas oo ah xaqiiqda dhabta ee dib u heshiisiinta Soomaaliya. waa haddaad xor ka tihiin gumaystaha waddanka dhooman iyo ajaanibta saldhigatay waddanka. waa haddaad doonaysaa in aad aragtaan Soomaaliya oo barwaaqo ah iyo waddankeenna oo nabad iyo nolol ay ka jirto. ملايكة بدح مروينا انت تكسو مرويا الحمد لله كاغا دلان هان محل يري درين كجوق واي دول ما شاء الله عيدان سيو عرفوس عربنا waxaa loo uraa diin sima aragtay oo magad ku soo arkay urku arabkii ilbunka daribar soo dagaalnay waa aragtay mar dambe aniga wadankii ma ka tagay war aniga balana igu taayaan ku gaari gacan aan wado wadan dadoo dambe عرب ضم الضوضات إنك تدخل ما كبرت على عسكر كي سقطت عيلكيس سوينا ويقصوا هذا قصتي كيشان على مسيح سنكس بجوك سنك ضم أنا إجابة هبرت ذيك ودن كيغلن ولا سخي يدين لك ويرو كلها ما هي walaalnimo iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan aad u fiican waliba si qurux banaato markii la isweeshanayo wax weydiintiyo ogaalka wax sheegiyo talada fiican walaalnimo buuxda weeye walaalnimo iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan aad u fiican waliba si qurux banaato markii la isweeshanayo wax weydiintiyo ogaalka wax sheegiyo talada fiican walaalnimo buuxda weeye ifka lagu yahay walaal ifka la isweeshadaa ifka wax la isugu taray alla ifka lagu yahay walaal ifka la isweeshadaa ifka wax la isugu taray